haddii aad doonayso inaad maalintaada ka dhigto mid waxtar badan kuu leh waxaan idin la wadaagi doonaa markaa talooyin qiimo leh oo aad wax badan ka faa'iideysan doonto. Talada koowaad aad idin siinayo waxa weeye isku day maalintii inaad hurdada xilli hore ka toosto. Haddii hurdada xilli hore ka toosto waxay awood ku siinaysaa markaa inaad wax badan qabsato oo aad maalintaada adigoo firfircoon guriga ka soo baxdo. Sidoo kale talada labaad ee muhiimka aad idin siinayo waxa weeye inaad dabeecad ka dhigato inaad salaadaha waqtigooda ilaaliso. Mas'uuliyad aad u weyn iska saar inaad salaad kasta waqtigeeda ilaaliso. Dabeecad ka dhig in markaa salaada aad ku tukato jamac ama aad waqtigeeda wax kasta oo aad qabanayso markaa inta joojiso aad tukato. sidoo kale talada kale aan siinaydan waxa weeye inaad maalintii ugu yaraan 30 daqiiqo oo jimicsi ah samayso ama soo yar lugay soo dabaalo soo orod kubad ciyaar laakiin isku day inaad maalintii dhaqdhaqaaq u samayso si aad markaa uga badbaado cudurro badan oo markaa uu keeno fadhiga badan iyo jimicsi la'aanta. Talada kale aan siin doonaaydan waxa weeye inaad maalintii ugu yaraan xitaa 10 bog ba ahaadaan inaad wax akhriso soo jadwalkaaga mashquulka ku darso inaad maalintii wax akhriso. waliba talada dadkan inta badan si xaaway in waxan aad akhrinayso ee noqdaan marka wax adigu aad xiiseynayso ha isqasbin adiga hadii aad taariikhda xiiseynayso taariikhda akhriso dadka qaar baa waxay xiiseeyaan jaajuusnimada iyo waxyaabaha basaasnimada iyo waxa dadka qaar xiiseey akhriso dadka qaar novels ka xiiseey dadka qaar xataa comic books ka akhristo marka adigu dabeecad ka dhigin aad wax akhriska isbarto okay waxay keeni doontaa marka waxyaabaha muhiimka ku ah inaad akhriso hadhow inay ku fudaadaan laakiin hadii aad waxba akhrininba oo waliga buug aan soo qaban laga markaad saa u furto inaad caajisto oo xitaa quraanka inaad akhrisin kugu adkaado marka dabeecad ka dhig wax akhriska isbar waliba adoo si tartiib u bilaabay hal page laba page saddex page 10 page saa kuwad adigoo markaan akhrinaya waxaad xiiseynayso oo aad ka caajisayn. Talada kale aan siin doonaaydan waxa weeye inaad maalintii ugu yaraan hal saac oo kamida inaad ugu talagasho inaad xirfado cusub barato xitaa hadii aad tahay qof dhaqaalaan isku filan oo shaqo fiican ka shaqeeya markasta aad u baahan tahay xirfadaha inaad barato soo xirfadu kaliya ma noqon doonto xirfadaha ku shaqeysanaysa xirfado waxa jira marka qofku u baahan yahay in noloshiisa qayb kala duwan marka uu ku hormariyo. Sidoo kale caalamka imka ku noolnahay waa caalam aad isku bedbedelaya marka si aad ula jaan qaado waa inaad bartaa marka xirfadaha marka soo kordhaya waxa laga yaabaa 5 sano ka hor waxa la yiraahdo artificial intelligence ChatGPT prompt engineer waxa dhaynayna jirin laakiin maanta qasab bay noqotay in qofku wax ka yaqaano markasta waa u baahan tahay in xirfadahaga aad update garayso xirfado cusub aad barato si marka aad ula jaan qaado isbedelkan xawaaraha ku socda marka caalamka ka dhacaya sanadka ka dambeeya. Talada kale siinaydan waxa weeye in aad ilaaliso caafimaadkaaga inaad cunto nafaqo leh si jirkaagu marka uu helo tamar iyo aqli ku filan ku shaqeeyo. Soo kale marka laga yimaado tamarta iyo energy-ga waxa jira cuntooyin qaar qofka hadii uu cuno oo uu macaansado ama uu ku raaxaysto in hadhow marka caafimaadkiisa dambe mustaqbalka ay u keeni karaan marka cudurro aan la daweyn karin ama ay noqdaan cudurro qofka ku qasbayaan uu la noolaado. Marka inkastoo waxyaabaha qaar cudurrada caafimaadka xanuunka ay yihiin qadar iyo wax Ilaahay gacantiisa ku jira laakiin markasta qofku waxa la doonayaa in uu iska ilaaliyo waxyaabaha u keenay in mustaqbalka dambe ay saameyn ku yeelato caafimaadkiisa. ugu dambeysay aan doonayna ku soo koobo ayadana waxa weeye mid aad iyo aad u soo badanayso oo ah marka qofka in uu la qabsado ama marka uu badsado waxyaabo u keenay raaxo fudud oo marka aan u wanaagsaneyn okay salaamik waxa jira waxyaabo ku keenay kar in aad la qabsato oo dopamine level taada kor u qaaday sidoo waxa kamid inaad daawato filmaan xun in aad salaam waqti badan ku bixiso social media oo marka mar walba mobilkaaga soo qaado farxad dareento marka mobilku ka damaam internet la'aan aad xanaaqdo marka taas waxay noqon doontaa marka wax jirkaaga uu la qabsanayo oo aanad ka maarmi karin okay marka mar walba iska ilaali waxyaabo keeni kara inaad ku tiirsanaato oo ay u baahan tahay maskaxdaada mar walba si dopamine u hesho waxay kamid tahay waxyaabaha dhow keeni doona inaad adoon u noqoto oo mar walba aad u baahato waxa inaad hesho waxyaabo waaweyn baa jira Ilaahay naga badbaadiyay sida balwadaha waaweyn sida jaadka sigaarka qamriga kala kamida waxyaabo dhan waxay keenayaan saameyn ku yeesha maskaxdaada oo mar walba qasab ay kugu noqoto in marka aad hesho marka iska ilaali sonkorta xataa kamid tahay qofka sonkor badan cabo mar walba wuxuu u baahan sokorta inuu helo hadii kala xalaga madax inuu xanuuno ama marka uu sokorta u raadiyo marka waxaan rajaynayaa muuqaalkan wax badan ka faa'iideysatay todobada qodob ee muhiimka ah iyo talooyinka aad siiyay hadii muuqaalka ka heshay like noo saar sidoo kale hadaan ugu cusubtaan ugu soo bir. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.